قبص سمعتك ها؟ علنك سومالي ولقى ما قبل مياه ما والله درينكاي كورة سومالي درينكاي كورة درينكاي سومالي خلاص بس يعني مقفر أحسن طيب مقفر أحسن نقدر في أباع نقبوسي Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying. brother calankaygiiyo waxaan leeyahay calankaagiyo calankaygiiyo joog magaaladaada iyo hooyadaana ha ahaato xamar magaaladaada iyo hooyadaada xamar ha ahaato meel kale war meel kale meesha laga xukumaamaano غيرت مقالة هامبوغ أي ميكروفون كولي لا دح قاضينا مقعاقو سدحن مقعاقو سدحن ومرسل خليف محمود مرسل كود جولاي أي الوجرة بيج إيكي كسودو أمبليادي دنكاغا dhammaan horta waxaan u hambalyeynaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba waan u hambalyeynaa konton iyo sagaal guurida ka soo wareegatay maalintii aan xornimada qaadanay laakiin maanta waxaad moodaa inay sidii maalmihii hore ay ka duwan tahay maalmihii hore waxay ahayd ummad wada midaysan wada jirta ay ahayd laakiin maanta waqti waa isbedelay maanta waxa la noqday wadankii awoodii Soomaaliya iyo siyaasadda Soomaaliya way daciiftay burbur xoog ma dhacay laakiin waxaad moodaa xogaa sidii hore in laga soo kabanay way aragnimo laga qaatay burburkii xoogana iyo la soo maray dhibaatooyinka la soo maray maanta dhalinyaradu qurbaha joogtaa waxay dareemayaan hilow badan u qabaan wadankoodii iyo calankoodii iyo midnimadoodii hilow badan ay u qabaan taas waxaan rajaynayaa sanadaha soo socda inay aan ka gaari doono guul aad u fiican dhalinyaraduna ay noqon doonaan jiilka mustaqbalka kusidii 13 SYL oo kaleeto inay noqon doonaan ay soo bixi doonaan hadiyeeyo aad isku duuban aad maaragtaa wadanka horumarkiisa iyo midnimadiisa qayb weyn ka qaadan doona oo shacabka Soomaaliyeed dhan miday doona meel kasta ay joogaan magaalada Hamburg dhalinyarada ku dhaqan qaar baa marti u ah waxa kamid ah mahad Hamburg soo dhaw ugu horeen hambalyadii dhankaaga wallahi ni horta waan dhawahay waxaan horta halkan ugu hambalyeynaa ummadda Soomaaliyeed iyo kowda luuliyo waa maalin fiican waa maalintii ummadda Soomaaliyeed waa maalintii midoobeen marka hambalyo ayaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed dhalinyarada asagaaga ah qurbaha ku dhaqan dalkii ka soo carartay maxaad ugu baaqi lahayd wallahi niyo dhalinyartu waxa leeyahay dalkii waa ogtiin wax idinka dambeeyo iyo maxay tahay halka ka soo tagteen waxa leeyahay horta dalkii wax u barta sida horumar u gaarsiin lahaydeen iyo sida maxay tahay mustaqbal aad ku heli lahaydeen ayaan ugu maalin wanaagsan saaxiibayaal kooda luuliyo munaasabada maalinta xornimada ama toddobaadka xorriyadda ummadda Soomaaliyeed ayaynu bartamaha kaga jirnaa waxaana si toos ah noola socotaan YouTube channelkeena Beg AK iyo waliba barta Facebook aynu ku leenahay dhalinyarada ku dhaqan magaalada Hamburg ayaan mikrofoonka la dhex qaadi doonaa waxayna halkan ka jeedin doonaan hambalyada ku aadan maalinta xornimada ummadda Soomaaliyeed ama maalintii ay midoobeen gobolada waqooyi ee dalkeena iyo sidoo kale gobolada koonfureed waxa garabkayga bidix jooga mid kamid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Hamburg waa mid kamid ah ciyaartooyda kubadda cagta ugu wanaagsan magaalada tan Jambarti maalin wanaagsan waan salaamayaa dhammaantiin Soomaaliya meel walba aad ma taqaanay aad joogtaan hambalyo kooda Yuuliyo كل ayaan joognaa hambalyo mar kaleeto laga yaabee in sanadooyin badan Hamburg aad ku qaadatay sanadka soo aadan maxaad rajaynaysaa insha Allah waxaan rajaynayaa Ilaahay anigu gaarsiiyo caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo markan waxaan u yeerayaa Xaaji Cali mid kamid ah ciyaaryahanada dhinaca orodka ku wanaagsan malaha dawal duqoowe السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad baan ku salaamayaa saaxiib qanciye maantana sanad guuradii mataqaanaa 9 baan ku jirnaa aad iyo aad baan hambalyo ugu dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee daawanaysa iyo saaxiibadada gaarka tan iyo markii aad madaxa kor u soo qaaday garkii waa soo baxay daadu waa sii socotaa maxaa la yiraahdaa dhalinyarnimo badan waa la soo maray sanadkan maxay kaga duwaneed ayaad is leedahay munaasabada kooda July sanadkan waxay kaga duwan tahay
mataqaanaayo sanadba waxa ku kordha mata guuba ku kordha sanad walba waxba ku kordhay moogtay maadaama aan kulli aan ku qaadanin Soomaaliya oo ku qaadanayno qurbaha gaar ahaan Hamburg kulli wax badan baa isbedelaan kulli moogtay saaxiib qanciye marka hambal yaan u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan aad iyo aad baan u salaamayaa saaxiibkayga qaaliga ah calankan iyo waliba dhalinyarada guud ahaan maxaad leedahay horta calankan waa calan Soomaaliyeed waxaana leeyahay mataqaana Soomaali baan nahay Soomaali baan nahay kulli feedback badan bay ka bixin doonaan asxaabtayda qaaliga ah marka aad iyo aad baan kulli u salaamayaa mataqaana kulli waa calanku waa calankeeni waxaan joognaa qurbo nin qurbaawi imka haduu ku weydiiyo ku raado halkeed ka timiday waxaad oranaysaa Soomaaliya siyaasadda iyo Soomaaliya way kala duwan tahay marka ummadana waxaan leeyahay qulubteena la isku keeso dugo siyaasiyiinta ayaa waxaan u sheegayaa mataqaanaa way ka duwan yihiin dhalinyarta iyo shacabku waa saaxiibo siyaasiyiintuna waa saaxiibo markaas ha kala gartaan dhalinyarnimada iyo siyaasiyiinta aad baan ku salaamayaa saaxiib qalbi noolaato Soomaaliya aynu leenahay guuleed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliya ay maalin wanaagsan saaxiibayaalkooda luuliyo munaasabada maalinta xornimada ama toddobaadka xorriyadda ummadda Soomaaliyeed ayaynu bartamaha kaga jirnaa waxaana si toos ah noola socotaan YouTube channelkeena Beg AK iyo waliba barta Facebook aynu ku leenahay dhalinyarada ku dhaqan magaalada Hamburg ayaan mikrofoonka la dhex qaadi doonaa waxayna halkan ka jeedin doonaan hambaliyada ku aadan maalinta xornimada ummadda Soomaaliyeed ama maalintii ay midoobeen gobolada waqooyi ee dalkeena iyo sidoo kale gobolada koonfureed waxa garabkayga bidix jooga mid ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Hamburg waa mid ka mid ah ciyaartooyda kubadda cagta ugu wanaagsan magaalada tan Jambarti maalin wanaagsan waan salaamayaa dhammaantiin Soomaaliya meel walba aad mataqaanay aad joogtaan hambalyo kooda Yuuliyo kulluliin ayaan joognaa hambalyo mar kaleeto laga yaabee in sanadooyin badan Hamburg aad ku qaadatay sanadka soo aadan maxaad rajaynaysaa insha Allah waxaan rajaynayaa Ilaahay anigu gaarsiiyo caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo markale hambalyo markale hagaag sidoo kale saaxiibada ayaan sii wareejin doonaa magacaago saddexan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa Xuseen Xaashi Xuseen degan magaalada Hamburg ee wadanka Jarmalka Xuseen koodululi ayaa lagu jiraa Beg AK ku soo dhawow munaasabada maalmaha toddobaadka xorriyadda 26 Juun ilaa iyo 1 Juulaay hambaliyada iyo dhankaaga marka koowaad oo kulay aad baan ugu faraxsanahay macnaha munaasabada kooda luuliyo iyo ama isbuuca kulay xorriyadda ummadda Soomaaliyeed waa kulay waxaan filayaa waa sanad guuradii 59aad ee ka soo wareegatay xilligii Soomaaliya macnaha ay xornimada qaadatay hambalyo ayaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel bay joogaan qaasatan dadka Soomaaliya joogo dadka magaalada Hamburg la joogo waxaan aad u sii rajeynaa insha Allah sanadaha soo socdo kale in sidoo kale magaalada Hamburg aan munaasabado weyn ku sameeysan doono kulli aan ku xusi doono sanad guurada ama xorriyadda ummadda Soomaaliyeed sanadkan sanadkiisa maxaad u rajeynaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee Hamburg ku dhaqan in dalkii ay tagaan soo booqdaan dalkoodii dadkoodii ay la dabaaldegaan 1 Juulaay kulli waxaan u malaa waa qasab qof walba Soomaaliyeed wadankiisa inuu ku noqdo oo la qaato farxadda dadkiisa Soomaaliyeed sidoo kalena macnaha maxaa la yiraahdaa in anaga laftirkeen maadaama hadda aan qurba ku noolnahay Hamburg aan ku noolnahay laftirkeen aan isdareensiino oo macnaha laftirkeen anagu inta joogno aan xusno munaasabadaas aad weyn oo aad u qiimaha badan si fiican waan sameysano xaflad aan ku xusayno insha Allah kulli dhalinyarta dhan waxa waaye waa ku baraarujinaya kulli waana dhamaanteen waxaan isleeyahay inaan ka wada shaqeyno anaga noo taalo waa mahadsan tahay Xuseen mar kale saaxiibada waxaan leenahay toddobaadka xorriyadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Soomaaliya meel baad joogtiin caawa صاحبك محمد أسوسعنا يو فوفو مقع سعد فوفو وضد كترمل كجوجو وقرابتان مالي إني يروح لودي والله برا حقك مركن وحا دينعيغا فديا جنبرتي هدا aragteen iyo waliba Axmed waxa uu kamid yahay dhalinyarada ilqabad ku ah Soomaalida ku dhaqan magaalada Hamburg ugu horeen ciid wanaagsan
maalinta xurriyadda 1 July ayaynu ku jirnaa Axmed. بسم الله الرحمن الرحيم horta ma taqaanaayad baan ugu faraxsanahay ma taqaanaayay ilaahay sanabada nagu gaarsiiyo maalinta 1 Luulyo ma taqaanaayay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta caalamka joogan waan hambalyeynaya farxad ma taqaanaay 1 Luulyo waan la qaybsanaynaa haddii aan hamburg ahaan nahay aad baan ugu faraxsanahay aad baan u soo dhaweynaynaa ma taqaanaay 1 Luulyo watahay sanadkan sanadkiisa ma xad rajeynaysaa dhalinyarada inay wax qabsadaan hore u sii socdaan maadaama la joogo wadan yani marti aynu ku nahnay horta ma taqaanaa waa runta mudaman marti ku nahay mudaman ma taqaanaa wadankeeni dhibaatooyin ma taqaanaa waxay noo geysteen ma taqaanaa dadka ma taqaanaa aan ducaysnayn aad iyo ayaa halkan keentay insha Allah dhalinyarta kuma hamburg ku nool iyo dhalinyarta ku nool dhammaan qurbahan waxaan uga rajeynayaa in horumar fiican gaaraan ma taqaanaa halka ay sanadkan joogaan meel ka weyn gaaraan talaabo hore ay u qaadaan waa mid aan aad u rajeynayno waa mid ma taqaanaa dhammaan aan la rabnana inay ma taqaanaa talaabo culus qaadaan وليد wuxuu kamid yahay dhalinyarada yani inta badan ay jecel yihiin magaalada Hamburg ku dhaqan wali door su'aalood aan rabaa inaan ku weydiiyo marka hore hambalyo munaasabada 1 Luulyo والله يا حبيبي ما يفهم عليك af Soomaali fahmaysid كلام عربي مفهم في سومالي inta ku dhalatay magaalada مقدشو calanka Soomaali waliga ma qabat ما والله hadda qabso سمعتك ها calanka Soomaali waliga ma qaban miya ما والله sidaad u aragtaa dareenkaaga ka hor سومالي dareenkaaga ka hor درنكي سومالي خلاص انا بس يعني مو فرحسن فرحسنا نقدر افا ابا نقدر بوبسي هاكس هلا يا Soomaali calanka noo qaad Soomaaliya toosoo عليك الأولى